Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal, dhegeystayaal, meel walba iyo si walba u dhageysanaysaan barnaamijka ama u daawanaysaan. Saa idiin bala qaadnay barnaamijyo badan oo arrimaha Soomaaliya khuseeyo si gaar inoo noqon doonta. Barnaamijka maanta waxaa sidoo kale ila falanqeyn doono Cumar Maal Axmed oo ah eh, khabiir ku takhasusay dhanka arrimaha bulshada, arrimaha siyaasadda iraahdo, ahna wariye ka tirsan haatan kana shaqeeya dalkan Sweden. Cumar wuxuu aad ugu dhundulolaa ama aad u falaqay arrimaha geeska Afrika ay Soomaaliya ka mid tahay. Cumar, marka hore kusoo dhawo barnaamijka. waa mahadsantahay maxamed yaale. Barnaamijka maanta xoogiisa waxaan ku saari doonaa maadaama Soomaaliya loo doortay madaxweyne cusub. Toddobaadkii hore ama toddobaadkii kasii hore aan xooga ku saarnay waxyaabaha laga filan karo. Caqabado hor yaala madaxweynaha waxaa ka mid noqon doono dhanka ammaankana waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay inay aad u faragelinayeen beesha caalamka, gaar ahaan Mareykanka. Maalinka madaxweynaha la doortay kadib, Mareykanka wuxuu ballan qaaday ama xukuumadda Biden ay sheegtay in Soomaaliya ay usoo diri doonto ciidamo dheeri ah. Saan la soconan Mareykanka mar walba geeska Afrika ama Soomaaliya il gaar ku haya. Cumar, markaa fiirisid marka maxay tahay waxa uu ka dhex arkayo Mareykanka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya? aad iyo aad mahadsan tahay. Su-aashan waa su-aal aad u muhiim ah oo fog, mana ahan wax hadda bilowday in Maraykanku uu daneeyo danaha geeska Afrika. Waxaan saa ka soo qabanayaa burburkeenii kadib siyaasaddii arrimaha dibadda Maraykanka ee ku wajahnayd Soomaaliya ama gobolka geeska Afrika, oon khaasatan aan ku fiirin doono Soomaaliya. Soomaaliya markay burburtay 1992 Maraykanku wuxuu soo abaabulay urur gaashaanbuura oo uu hogaaminayo oo la magac baxay barnaamij waxa la yiraahdo waday barnaamij la yiraahdo Operation of Restore of Hope, ama macnihiisu uu yahay barnaamijka rajo soo celinta Soomaaliya ee lagu faragelinayay xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa military Soomaaliya. Maxaa yeelay dagaalkii sukay wuxuu keenay ammaan darro iyo fowdo. taasaa waxay keentay marka in ciidamo huwanta la dhihi jiray magacaasay lahaayeen oo Maraykanku hogaaminayo 30 dowladood aan filaya haddaysan ka badnayn ay ka koobnaayeen. Markii Sovietku burburay waxa la yiraahdaa Maraykanku wuxuu sameeyay siyaasad la yiraahdo New World Order System oo isagu uu hogaansho oo waxa la sheegay maadaama adduunku uu noqdo waxa la sheegay unipolar oo systemkii bipolarka ah uu baaba'ay laba geesoodka ahay oo doctrine camp Sovietka iyo kii reer galbeedkaas adduunku u qaybsanaa. Markii Sovietku meesha ka baxay Maraykanku wuxuu noqday finalist. Isaga iyo huwanta oo wata oo reer galbeedka waxay Soomaaliya soo fargeliyeen laba arrimood. Markii koowaad ayagoo ku dhahaya humanitarian lagu justification sidaas oo ahaa, laakiin runtii markii labaad waxay noqotay operation disarmament wax la yiraahdo iyo faragelin siyaasadeed hubka dhigis. waxayna la kulmeen faragelmahaas waxa la sheegay Soomaalidu kacdoon ay kala hortimid dhibaato badan ka dhacday. Kadibna waa tid ogeydeen inay noqdeen mar labaad oo 2000 iyo dabayaaqadii 2007 aan filayaa 2007 meelahaas ay ahayd ay 2006 2007 intuu dhaxaysay ayaa haddana Maraykanku watii la aasaasay dowlad la yiraahdo Federal Transitional Government wax saas ah. Federal government-igi marka waxaa dhacday inay Soomaaliya tagi weyday waliba caasimadda Soomaaliya. Maraykanku xil weyn oo iska saaray military ahaan iyo economic ahaan in la taageero dowladdaas aan waxa la sheegay federaalka oo lagu sameeyay banaanka Soomaaliya lagu sameeyay waliba ay ka buuxeen markii la sameeyay excessive military and diplomatic political interventions. Dowlado badan ay ku lug lahaayeen sameyntaas uu taageeray ajendahaas. Maraykanku wuxuu ka soo horjeeday islaamiyiintii kooxihii islaamiyiinta markaa ka talinayay Soomaaliya oo ururka UIC ama maxkamadaha la yiraahdo Union of Islamic Courtska. Then markuu soo galay marka waxa uu yiri ololahaas marmarsimooyinka loo qabsado waxa kamid ah waxa la yiraahdo counter terrorism operations waxa la yiraahdo oo yiri meesha waxa ka kacay argagixiso. Therefore dowladda Maraykankuna waxay xil iska saaraysaa la dagaalanka argagixisada. Marka la dagaalanka argagixisada ajenda 2000 soo bilowday iyo 1 waaye September. Marka sidaas ay horta ay ku soo bilaabatay faragelintu. Haddana waxyaabaha marka laga bilaabo 2007 Soomaaliya ilaa maanta Maraykanku faragelintiisa military tan siyaasadeed waa wax muuqda oo aan qarsoonayn.
aada weyn waxaan xasuusanaa maraykanka wuxuu toos u bartilmaameystay shakhsiyaad gaar ah goobo gaar ah oberatiino gaar ah uuna soomaaliya mar walba ka sameeya way ugu dambeeyeen xataa dilkii lagu dilay hogaamiye al-shabaab oo kaleete dilkii lagu dilay ama duqeymihii badda oo kale laga soo duqeynay 40 sano ku dhowaad maqaal maalmooda akhrina waxaa ku qorneed in 40 sano ku dhowaad maraykanka uu duqeyn toos ah soomaaliya ku waday cid la socota iyo cid ka warhaysan aysan jirin maxaa u malaynaysaa duqeymaha marka la yidhaahdo sheeg waxaa la yidhahda operationkan counter terrorismka la xiriira ee bilowday anigu markaan ka hadlayo ka hor waa socdeen laakiin si toosa u bilowday 2007 wixii ka dambeeyey inta badan operationadaas waxay ahaayeen drone strike iyo training la leeyahay waxaan tababaraynaa ciidamo soomaaliyeed oo difaaca iyo intelligence xog ururin saasay ahayd waxyaabaha uu maraykanku focuska saarayo drone strikes against shabaabka iyo kooxaha uu asugu yaqaan argixisada iyo tababar ciidamada soomaalida qaybo ka mid ah isagoo isticmaalo oo maaragta la tababarayay iyo intelligence oo hadda intelligencegaasna aanu ma filayo in soomaalida lala sheergareeyo laakiin waa waxa isagu ururinaya xog ururina xilligii obama ayay arrintaas xoog lahayd aad u xoog badnayd trump administrationkiisi markuu yimid wax yar uu kasii taataabtay hawshaas kadibna waa tuu bilaabay inuu ciidankiisii 2020kii dhammaadkeedii aan filayaa inuu ciidankiisi kala baxo soomaaliya uu sheegay marka waxyaabaha markaan runtu ay tahay waxa la yidhaha sheeg arrimaha duqeymahan marka koowaad horta illegitimate waaye maxaa yeelay dowlad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo baarlamaan soomaaliyeed oo arrimahan ansaxiyey oo si la ogyahay u ansaxshay in waxaan la sameeyo ma jirto tan labaad dowladda federaalka laftirkeedu sharciyadeeda jaban sharciyada dowladda federaalka hadday ogolaato xataa dowladda federaalka hadda jirta iyadu lafteedu sharciyad buuxda maaha oo waxa la ummadda soomaaliyeed in dhulkeeda inta lasoo galo ciidamo shisheeye soo galaan waxay rabaan ay ka sameeyaan tan saddexaad on ka hadlaya waxay tahay duqeymadan dad badanaa ku dhintay xoolo badanaa ku burburay xoolo xayawaan badan geel lo ari aa lagu dilay guryaa lagu baaba'shay yaa loo haystaa yaa mas-uuliyaddaas qaadaya horta waa kow tan kale oo afaraad waxay tahay wax xala oo hadda aan muuqato oo guulo military dhulka laga taabo karo anuu aan aragnay ama aan dareemayno because dowladda soomaaliya waxaa arkaysaa jowhar iyo xamar daare baawur lasuma raaci karo waxaa la gobol walba baydhabo iyo waxaa la yidhaha sheeg meesha la yidhahda sheeg xamar waa sidoo kale baawur matay diyaarada loo qaadanayo meel walba marka maxay keeneen waayo marka operationadanu haddiiba dhulkii uu saas u kala xiran yahay ilaa hiiraan aan la mari karin ilaa iyo dhankan koonfur aadan kismaayo tegi karin maxay marka natiijada ay keentay duqeymahan iyo operationkan oo counter terrorismka waa wax horta in muhiima in dadka soomaalida isweydiiyaan anigase waxay la tahay maslaxa asagu u leeyahay waayo operationadan waa kuwii afghanistan ka socday ciraaq ka socday dhibaato badan oo dadka civilian ay ku baaba'ayeen bakistan laftirkeeda ka socda ninka imraan khana joojiyey isagana hadda meesha u dambeeyay waa aragteen marka anigu dhibta jirta waxay tahay waxaan meesha ka socda dowlad soomaaliyeed horta ma ogtahay ha ogaatee ma lagala tashaday oo waxay ayadu sharciyeeda miya ay ogolaatay hadday soo ogolaatay sharciyada intee la eg ayaa operationadan ay siisay oo ruqso intee la eg ay haystaan inay dhibaatooyinka ay geysayaan ay kusii wadaan waa mahadsantahay markaa fiirina marka inta howl uu maraykanka ka wada geeska africa oo danihiisa ugu weyn tahay uu wax badan ka fiirinayo ina taa istaraatiiji ahaan geeska africa marka loo fiiriyo soomaaliya meel aad u istaraatiiji ah dhan siyaasada dhan dhaqaale iyo dhan walba ammaanba ma u malaysa marka in maraykanka uu ku fashilmay gaar ahaan howlaha uu ka wada soomaaliya marka u fiirisid xukuumadda trump si u maalgelisay inkastoo obama xilligiisa xataa hoos loo dhigay laga soo bilaabo waagii clinton washington maxaa george bush inay ku fashilmeen ma u malaysa sidai ugu fashilmeen afghanistan oo caddeed weliba horta markaan fashilka hadlayna waxay tahay marka hore objectivekooda maxay ahayd inaan ogaano waayo haddii objectivekooda ay ahayd in waxa la sheeg soomaaliya peace iyo order lagu soo rogo oo shabaab lala diriro oo meesha laga saaro oo dowladda soomaaliya dhulkeeda qabsato ay kontrolsho objectivekaas waa lagu fashilmay lama gaarin laakiin haddii objectiveka uu yahay dhanka kale markaan u rogo oo aan aaminsanahay inay run tahay ujeeddadu inay tahay oo ay tahay in
maraykanku u joogo soomaaliya because of the geographic geopolitical strategy iyo yani booska meesha ay ku taallo xasaasi oo muhiim ah marka laga hadlayo mandiqada geeska africa oo ay tahay meesha soomaaliya ku taallo qofkii soomaaliya xukumo wuxuu xukumayaa Indian Ocean, Red Sea, Gulf of Aden. meeshaasna waxaa mara wadada ugu muhiimsan ganacsiga adduunka iyo energy-ga. hadalkayga waad fahantay. kow taas waa geostrategic. tan labaad waxay tahay economic and fishery exploration of Somali territorial waters and economic zones. dhulka Somali badda Soomaaliyeed ma kontrolsho. dowladda Soomaaliyeed dhulkeeda badda ma kontrolsho. economic zone territorial waterka iyo high seaska waxba ma kontrolsho. ciidan badeed ma jiraan. maalin walba maraakiib waaweyn aad timaado oo kalluunka Soomaaliya saas u xaalufinaysa, macdantii daldalaysa. badda Soomaaliya gudaheeda waxa ku jira oo iyagu waxay ku wadaan wax la yiraahdo sheeg inay daraaseeyaan ay baaraan. haddaysan yani mar hore aysan dhammaanba daraasadda saasaan filaya in dhammaataba. daraasadda marka la daraasaynayo batrool kaliya lama daraasaynayo, macdan mineraalsna waa la daraasaynayaa ama waaba la qaatay. waxaan ka ognahana ma jirto. tan hadafka saddexaad wuxuu yahay Soomaaliya waxay noqotay theater of war. meel qof walba oo xumadda dagaalka hayso uu hubka ku tijaabsado. hub walba lagu tijaabinaya Soomaalida. qof ka hadlaysana ma jirto. waxaa kaloo jira marka lack of Somali unity and national agenda. maadaama midnimo aysan jirin, Soomaaliduna aysan agenda qaran aysan lahayn. tan naftirkeeda waxay keenaysaa in faragelintu ay sii badato. dowlado badan oo kala danana ay meesha laga helo, maadaama meeshan law and order uusan ka jirin, control uusan jirin, midnimana aysan jirin. tan afaraad waxay tahay puppet government. waxaa naloo sameeyey dowlad dabadhilfa oo leh it lacks de facto and de jure power. dowlad awood military ama awood xooggan ay ku kontrolsho dhulkeeda iyo baddeeda iyo cirkeedana lahayn, mid sharciyeysanna lahayn. awood sharciyeysan oo jacayl iyo kalgacayl kusoo doorta aan lahayn, oo dadku aysan cod u bixin. awood militaryna aan wax ku kontroli karin, labadaba aan lahayn. marka waxaas maqaarsaarkaa meesha jooga. saas waa si fiican. markaa u fiirsidna wixii ka dambeeyey carta ilaa hadda waa saa sheegaysid waay. markaa fiirisid marka dowlad walba markii lasoo doorto ama madaxweyne walba lasoo doorto waxay ka badan la-yihiin villa Soomaaliya. mar walba madaxweyne markuu isdhiiba ama uu qofka kale wax u dhiiba wuxuu leeyahay al-shabaab aa la dagaalan, waxaasaan sameyne. dhibkiin weli meeshiisuu taagan yahay oo maalin qaraxi uu dhacaa oo qeybi ka tahay. wax yar barnaamijka horeen hadda kor oo kusoo qaadane faragelinta doorka ay ku leeyihiin wadamada ama beesha caalamka ama wadamada reer Yurub ama wadamada dariska oo kaleete. maxay tahay waxa ay ku leeyihiin saameyn intee la ay ku leeyihiin in uu sii karo sida hadda carabta imaaraadka oo kaleeto. waxaa xustaa furdadii maxaa la dekadii oo waqooyiga oo kaleeto sii ka sameeyeen, muqdisho oo kale sii u sameeyeen. faragelintu horta way qaybsantaa saddexan u qaybshaa. mid waa economic oo waxa waaye waa faragelin siyaasadeed oo Soomaalida dhaqaalaheeda faragelin dhaqaale oo Soomaalida lagu hortaagan yahay waay. oo waxa taasuna waad arkaysaa Soomaalidu waxay soo saartaa qudaar iyo xayawaan ay hadda waxay haysato resource-eeda. taana ma dhoofi karta, meel ay geey karta ma jirto. meel walba embargo ku taal. mar walba waxa leeyahay waxay dhoofi lahayd waxa la sheeg waa waxaan caafimaad qabin, waa wax saasa. propagandadaas waa jirta, restrictionkaas. waxaa kaloo jirta in dhul beereedka Soomaaliyeedna aan laga faa'iideysan karin because of war. dagaalkan la abuuro awgiis. faragelinta labaad waa mid siyaasadeed. Soomaaliya xur maaha. hadda in sheegay ama ku farx ama ka nax. Soomaaliya xur maaha. xorriyadna 1990 ugu dambeysay. waxaa jirta Soomaaliya waxaa lagu xukumaa dowlado koobana xukuma oo u taliya. taladaasana lagu xukumaa. waana road map loo sameeyey Soomaaliya marto. wadadaas hadday ka leexato, qof walba wadadaas ka leexdo qatar ku sugan yahay. tan saddexaad maxay tahay? waa militariga. maalin walba baddeedii waxaa jooga ciidan military oo maraakiib dagaala badda Soomaaliya fadhisa. yaa iskale anaga ma u yeeranay? qof u yeerta labo. nin walba dowlado kala duwan, nin walba xoog leh waxay noqotay meel uu ka kalluumaysto badda Soomaalida. waxa la sheegeen khayraadkeeda ka dhaco. madaxda Soomaalida maanta jooga nin ka hadlaya maaragtay inta dad
inta xoolaha badda Soomaalida la dhacayo dumping of wastage qashinka lagu shubayo kalluunka sharci darrada laga kalluumaysanayo baaritaanka macdanta qof madaxa Soomaali ka hadlaya maarta ama waqooyi ha noqdo ama koonfur ha noqdo ka hadlaya maarta ma jirto tan marka aan muhiimadda aan ka hadlayo waxay tahay midda military maxay tahay marka midda military waxay tahay mid hortaagan in maanta ciidanka Soomaalidu dhismo dhulkeedii uu controlo oo lagu soo rogay embargo oo leeyahay Soomaaliya xayiraad military saaran Soomaaliya wax ma iibsan karto yaan wax laga iibsan qofka wax ka iibsho leeyahay blacklisting la gelihayo ciidanka Soomaalida uu yahay qoraca ka haysto oo yani wax la sheego uu yahay ciidan aan dhisnayn hay'adaan dhisnayn oo qalabaysnayn marka saddexda faragelinoodba waxay keenayaan in Somali nation inuu total destruction ku yihiin xanuun oo aad u baabaawo waxaana ku sheegaa dawladda dhibta meesha laga soo Soomaalida laga haysto waa hoggaanka leadership ama waqooyiga ama koonfurda ama baridda hoggaanka maashab jooga hoggaan Soomaaliyeed maahan hoggaan maslaxad Soomaaliyeed ka shaqeynaya maahan waa hoggaan dabadhilfa oo isticmaar ku keensaday una shaqeeya isticmaar sidaas aniga la tahay maywa way noqonaysaayo haddiiba dowladdii aysan awoodin inay sharci ahaan dowladda wixii awoodiyay ka soo baxdo shacabka wixii looga baahnaa aysan samaynaynin ammaanka iyo sirdoonka inta badan waa meesha xoog hadda laga saaro oo haddaa xasuusida xukuumadihii ugu horreeyay ama dowladihii ka horreeyay farmaajo kale iyo kuwa farmaajo laftirkiisaba markii wadaxaajoodka la galay al-shabaab oo kaleeta iyo aad waxaa looga hadli jiray in xubno al-shabaab ay ka mid yihiin dowladda iyo saameyn badan ku yeelan karto dowladda laftirkeeda way jiiftaayoo maba kala fahmi karta meeshay ka socoto qof walba kursigaasaa loo wada dagaalamaa haddaan dib hal mar u fiirino buuqan iyo weerarkan iyo gacan fargelintan xoogga leh lagu hayo Soomaaliya kaleeto ma malayse in ruushka qayb asagan uu ku yeelan karo ama uu wax ku soo darsan karo ilaa meesha waa lagu soo kaltamaa waa lagu soo kalluumaysana والله horta ruushku damac siyaasadeed geeska Afrika waa ku jira berigi Soviyetkuna waa joogay berbera laakiin hadda elite-ka hadda dhisan ruushka dhibka jira waxay tahay ruushku wuxuu leeyahay laftiisu uu gal lahay meeshuu ka gal lahay daaqada uu Soomaaliya ka soo gal lahay laftirkeeda daaqad ciriiri ku noqotay maxaa yeelay elite-ka hadda dadka hogaansha siyaasadda Soomaalida waa dad waxa la sheeg la samaystay oo hadda ma aamini karo dad uu aamini kara maahan oo hadda maanta wax ku darsan kara ama la sheekaysan kara xataa maahan iyagu laftirkooduna dad ruushka ama bariga u jeesan kara maahan because waxay ku jiraan waxa la yiraahdaa ku sheegay meeshii leerka waxa la yiraahdaa sheeg waxay ku jiraan boxkaasay ku jiraan kama bixi karaan waxna kuma dari karaan waxna kama jari karaan hadalkayga ma fahamtay marka waana laga yaabaa inuu damacsan yahay laftirkiisu waxa meesha ka socda inuu ku qanacsanayn waana dawlad super power oo dana leh masaalix leh geeska Afrika kule adduunkana kule waana saaxiibna waan hayn bari Soomaaliya aad iyo aad u garab istaagay ay aad ugu baahnayd garab istaag wali sida maanta meeshii taaganto kale hasa ahaatee waxaa jirta in hadda waxa meesha jooga uusan aamini karin waxna ku darsan karin qof aamini kartana ma jirto waxa meesha jooga qof aamini karta ama dawladda Soomaaliya leeyahay federaalka ama gobol ha joogto ama heer degmo ama heer dawlad dhexe cid maanta wax u sheegi karta ama aamini karta ama daba ka karta ma jirto waxay wax ka maqlaan hal dhegtaasna waxa qolada xalana joogta wax ugu sheegta qof kale oo ka maqlayaan ma jirto maslaxa Soomaaliyeedna meesha ma taal ama 4 sano hal qaat ama 10 sano as long as systemkan federaalka uu jiro oo Soomaaliya uu taagan yahay Soomaaliya 1 sentimitir hor u socmayso wax yar hadda ammaanka hal mar aan dib ugu soo noqono waxaa fiirin karnaa Soomaaliya ama waddanka marka u fiirisid dad ciidamo badanaa waddanka joogo ciidamo Mareykanku soo tababaraa jiro ciidamo Carabaha soo tababaranaa jiro ciidamo wadamada dariska Ethiopia soo tababaranaa jiro hadda waxaa ciidamo dhawaan uu farmaajo xataa madaxweynihii hore hadda ka dhamaaday in ay jiri karaan in uu soo bixi doonaa ciidamo kaleeto dheeri ah marka dib u wada fiirisid waxaasoo ciidan oo tiro badan oo Soomaaliya ka howlgala ama ka shaqeeya ama ka kalluumaysta ama qaab qaldan uga shaqeeya ammaanka muxuu ka bedeli karaa isleedahay boqolka ciidan oo kala nooca oo hal mar magaalada ku wada yaacsan waxaan horta ku sheegaa waxay tahay ammaanka wax kama bedelaan ciidan tuutale oo ajnabiya ammaanka qaran nation walba ammaankiisa waxaa madax ka ah dadkiisa ciidankiisa qaranka nabad sugidda hay'adiisa nabad sugidda hoggaanka ciidamada
dadka bulshada oo waxa la yidhaha sheeg degan waxaan ku weydiinaa hal su-aal oo ah waqooyiga oo kale fiiri maanta soomaaliya sambal aan soo qaadan karno waqooyiga soomaaliya waxaa ka jira ammaankaas ma sameeyaan ciidanka booliiska iyo militarigu shaqo kuma leh ammaankaas waxaa samaysta oo keensaday dadka degan waqooyi galbeed qofka maqaayadda jooga kan tagsiilaha ah kan gaariga wada kan waxa la yidhaha guriga degan kan maqaaxida leh intaba waa wada shaqeeyaan waxayna la shaqeeyaan booliisku waa un caawiyaa mooye waa ayaga shaqadooda qabsada qofkii ammaankiisa laga shakisan yahayna report garaya marka qayb meeshan quruntay waxaa la yidhaha dhibaatadu ka taagan tahay waa dadkii reer koonfurka marka dadka reer koonfurkana laftigooda kuma baraarugsana madaxda ay leeyihiin inaysan madax u shaqaysa aysan ahayn ay laga maarmaana ay tahay inay ammaankooda gacanta ku qabsadaan ama banaadir ha noqoto ama labada shabeelle ha noqoto ama hiiraan ha noqoto ama mudug ha noqoto yani waxa muhiima waxay tahay dadka deegaankaas degan ee gobolkaas ku nool inay ammaankooda gacanta ku qabsadaan wixii amaan darro u keenayana ka fogaadaan aniga sidaas ay la tahay laakiin anigu kuma lihi ciidan maanta kan joogo soomaaliyeed waa ciidan aan istraakjaradiisa aan lahayn waa ciidan aan qalabaysnayn waa ciidan aan hogaaminkiisa uusan dhisnayn waa ciidan waxa la yidhaha xuquuq aan lahayn ee lagu dul hayo ciidan shisheeya waa loo keenay wiilasheena ciidanka soomaaliya waxa waa ciidanka geeska afrika ciidanka afrika ugu xoog badan uguna haybada badan marka laga reebo kan masaarida marka runta kuu sheego ciidanka afrika ugu xoog badan uguna sharafta badan u ahaa waxa la yidhaha sheeg kaalinta labaad ku jira marka egyptianka haddaananba ka fiicnaynba egyptianka mana ogeyn anugana ka fiicannahay kala xataa ciidamo loo diri jiray si fiican marka su-aashu waxay taagan tahay ciraaqaan u diri jirnay meel walbaan gey jir waxaan afrikadaanan xoreynay angola iyo waxa la yidhaha sheeg mozambique angola mafahmi iyo south africa marka su-aashu waxay taagan tahay annagii sidaasayna maanta waxaa naloo sheegayaa waxaa layni kikuyo iyo sakadudi iyo waxa ugandays adinka in ka fiican waxaasaa naloo sheegaya askarigeena $100 heli maayo koodana dhowr kun oo dollaraa la siinaya waxna ma qabto taangi oo haysta anagu taangi ma iibsan karno sidaasaa naloo sheegay beelaan nahay waa raalliyaan ku nahay weli intaan sidaasu jirtana ana waxaan aaminsanahay in soomaaliya nasiib darro soomaaliya hal tilaabo hor u socon mayso intii aan 4.5 federalism iyo isticmaar 60ka aan garaacnay weli dabada u dhaqayno joogo nalagu siray inaan reeranahay nalagu dhakray oo wax walba ku iibinay qabiil iyo qabyaalad iyo reero aan ku iibinay oo iimaankeena oo noqday aamin weyne xoolaha iyo dhulka aan leenahay iyo badda aan leenahay aamin weyne iimaankeena oo noqday inaan shisheeyaha dawarsano anigu ma filayo in soomaaliya ay tilaab qaadayso waana mahadsantahay aaday u rajo xumaanayna markii loo fiiriyo 30 sano 32 sano intaas weli meeshii sii taagantahay baahidii intaana soo xidhin barnaamijka ugu dambeyn marka shacabka soomaalida ma u malaysa marka inaysan ayaga laftirkooda u baraarugsaneen dowladnimadii ammaankii shacabka laftirkiisa inuu soo diyaarsaneen shacabka soomaalidu waa 3 u qaybshaa ama 4 qayb waxay tahay qaybihii berigii isticmaalka lagu daray waxa la sheegay dowladaha waxa la sheegay reserve area iyo NFD oo Ogaden iyo NFD loo qaybsho Kenya iyo Ethiopia la raashay kuwaas horta waxay ku dhex jiraan weli meesha looga soo tagay jiraan ama ha ku wadada Afrikaan ama ha ku darsadaan hala noolaadaan siday u egtaan weelan si fiican u la noolaadaan ama de ideadii Soomaaliyeed kalena hadda ma muuqataba Soomaali nationalism markaan ka hadlo inay Soomaali wax ku darsadaan maanta waxa ugu dhownaa meeshooda joogaan markaan u soo naabtay jamhuuriyadda Soomaaliya markaan ka hadlo jamhuuriyadda waqooyi wuxuu rabaa succession gooni goosad warkiisu waa cad yahay waqooyina gooni go'aanay rabaan Puntland waxay wadaa iyaduna rabtaa semi succession iyadoo laftirkeedu waxay haysataa gooni goosadna way isu diyaarinaysaa gacanta kalena waxay kula shaqaysanaysaa waxaan la yidhaha koonfurta ama centralka meesha aan la ogeyn waxa ay rabto waxa weeye south central Soomaaliya qaybta ka soo bilaab mudug ilaa iyo gey waxa la sheegay jubbooyinka gaarsii dadkaasu ma oga meesha ay u socdaan aniga siday la tahay oo runtii waxaa la yidhaha wax badanaa ka walaacsan waana meesha ammaan darrada iyo dhibaato ugu khayraadka badanna Soomaaliya laakiin nasiib darro dadka madaxda ka ah iyo shacbigu kuma baraarugsanaa in dadkan maalin walba madaxda meelaha hor ordaya
aysan Soomaali madax sax ahayn waxaan inaysan madaxayn because hadday xataa shakhsiyaad fiican yihiin systemkan 4.5 ka qof walba oo dhexgala waxay la mid tahay xabad timira oo ku dhex tuurtay meel bulaacada marka ma soo qaadan kartaa timirtaas soo ma qaadi kartid ma oga dadku kuma baraarugsana reer waqooyigu waa baraarugsan yahay reer bariguna waa ogyihiin waxay samaynayaan laakiin dadkan waxba ogeyn anigaana misanahay inay waxa la sheeg qaldan yihiin oo wadaha lagu qalday been loo sheegay waxa waaye nimanka reer koonfurka oo lagu saray 4.5 federalism oo maanta gobolkii banaadir wada male canshuurta waa laga qaadaa male waxa la sheeg caafimaad male malahan waxa la sheeg haddaan runta kaaga hadlo waxa la sheeg infrastructure ma jiro school la baxsho dowlad service baxso ma jirto gobernatora ay iyagu la xisaabtami karaan dadkaasu ma haystaan waana dadka dhibaatada ugu weyn ku dhacayso Soomaaliya waa xamar iyo xamar ku dhow xamar dayaha labada shabeelle iyo meesha la hiiraan iyo waxa la yiraahdaa baydhabo waa dhibaatada meesha weyn ee hadda ka jirto ama dhaqaale ahaan ha noqoto ama ammaan darro ha noqoto iyaguna waxaad moodaa inaysan ogeyn waxaan la leeyahay 4.5 federalism federaal wax la yiraahaa iskale laakiin adigu maxaad leedahay su'aasha taaganta waxay tahay aaway adiga dowladdaada dhexe dowladda hoose federalismkuna uu qabaa global regional government iyo federal government jira regional government banaadir waa regional government therefore anu waxaan ku talinayaa dadka reer banaadirka ama gobolka banaadir degan in gobolkooda ay kala hoos baxaan nidaamkan federaalka si ay ammaankooda u wanaajiyaan Soomaaliyana way anfacaysaa sidaasi dowlad walba isla xisaabtan dhabana way keenaysaa gobolkii uu la xisaabtamo governorkiisi doorto 17 degmo way ka dhici kartaa doorasho ha lagu qabto laakiin intii nomination uu ku imaanayo gobernatoruhu anuu ma aaminsan xamar inuu degayo xamar hadduusan deginna Soomaaliya israacaysa ma jirto saasaan aaminsan aad iyo aad baa soo dhammaynayna barnaamijka su-aasha ugu dambeysa oo tii ku bilaabna oo ah maraykanka ciidankan hadda marka Soomaaliya uu sheegay inuu soo diri doono si walbay noqon karaan sidii yihiin oo kale ay noqon karaan inay badaha joogaan in Djibouti oo kale ay fadhiyaan centerkooda weynka muxuu saameyn ama muxuu ka bedeli karaa isleedahay xukuumadda cusub ama madaxweynaha cusub la doortay dowladdiisa dhowr sano soo socota wallahi waa dictationkii mar walba haddii ciidamo shisheeye kusoo dul degaan micnaheedu waxay tahay inaadan xur ahayn madax bannaanayn waana continuation of wax la sheeg destruction yani in dad Soomaaliya la duqeeyo sawaariikh lagu dhaco dad civilian badan dhintaan oo casualty badan timaado hub la isaga tijaabsado dowladda Soomaalida iska noqoto wax iska because anigu waxaa jira hami dadka Soomaaliya waxa ka dhex guuraa hami ah in ciidankoodu maalin la wareego talada oo la wareego in ammaanka qaranka dowladuna ay noqoto dowlad isku filan oo iyadu ismasruufta dowladana isma masruufto waxba ma yaalin meesha ciidankeena waxa la yiraahdaa dowladda shisheeyaha kala u kala qoqoban yahay oo kala masruufa ama kala tababarta oo ciidan minaysan xataa meesha kuma hayno gobolladii laftirkoodii ciidankoodii nin walba xaafadiisii u joogaa waa ciidan qabiil ku dhisan ciidan qaran meesha ma joogo hogaame ciidan qaran oo hufan lama arko ajenda iyo balaanin ciidan qaran lagu dhisaayo ima muuqato marka walaal waxa xalay waxa waaye waa continuation of colonization kelmadaas aan kuu sheegaani sii wadis isticmaalka la sii waday isticmaalka sii socona aad weyn waa rajeynaa inay dowladdan wax badan ay ka arki doonto laakiin hadda uma cadde waxaa jirto 100 sano inay dhamaato u malaysa oo maxaa la Turkiga uu la wareegi lahaa xataa gacmadan hadda dib wax yar u fiirino oo awalba waagi Cusmaaniyiinta kadib laga qabtay 100 sano hadii dib loo soo celiyo xogaa yar ma dareemayo xataa dhanka geeska Afrika ama gacanka Carabeed oo kale in Turkiga saameyn uu ku yeelan doono sidoo hadda garab weyn uu kaga sameeyo Soomaaliya iyo waddan badan Afrika oo kale wallahi Turkidu waa dowlad xadaarad leh fog taariikh weyn aan wadaagno oo taariikh walaaltinimo kalgacal nana garab istaagto maalin aan aad u liidanay ama ha noqoto taariikhda dhow ama taariikhihii fogaay ha noqoto aad noo garab istaagtay maantana waan filayaa inay madax bannaanaa doonaan heshiiska berigay jabeen kadib in 123 sano laga joogo waxay soo ceshan doonaan madax bannaanidoodii waana muuqataa inay soo ceshan doonaan wuxuuna Turkigu u socdaa inuu noqdo dowlad super power sida aniga ila tahay ma noqon doono dowlad dhexe oo dowlad kala daba socota
laakiin waxay la tahay inay noqon doonaan dowlad sida Chinese-ka ama Hindida oo kale iyo Pakistaanka iyo dowladahan soo awoodda leh ee muuqda dunida ka muuqda laga ixtiraamo inuu kusoo bixi doono waana filaa inuu resourcena haysto taariikhna haysto oo ku hogaamiyo ummadaha islaamka una yahay dowlad hogaamin karta waxna bedeli karta runtii hase ahaatee waxay ku xiran tahay wixii Erdogan ka dambeeya because anigu waxaan arkay Erdogan hadduu joogo waan hubaa inay sidaa dhacaysa laakiin hadduu meesha ka tago wax imaanaya qofka kuma jirto taasna waa jirtaa cumar aad iyo aadan kaaga mahadcelin waqtigaada qaaliga barnaamijkeenana intaana kusoo koobaynaa falanqeynta kooban saan horena daawadayaasha ama dhegeystayaasha boodka xataa dhegeysanaya u ballan qaadnay waa sii wadi doonaa hadba waqtigeena intuu naga siiyey iyo cumar waqti intuu ka helo iyo inta indhendheen ay noqoto cumar waqtigaada qaaliga aad iyo aadan kaaga mahadcelin walaalkeen waa mahadsantahay walaal aad iyo aad mahadsantahay fursadan iyo doodan maanta noo furtay aad iyo aad